waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dawladda iyo shacab weynaha reer Galmudug meel ay joogaanba. waxaan rabaa in halkan runtii aan ka xuso caaway shirarkii taariikhiga ahaa ee lagu qabtay caasimadda Galmudug oo Dhuusamareeb 1 Dhuusamareeb 2 Dhuusamareeb 3 ku soo dhamaaday inaan iraahdo reer Galmudug meel aad joogtaanba waan kaga mahadcelinaynaa sida qayb qaadateen. gudoomiyaha baarlamaanka caawinka la jooga madaxweyne ku-xigeenka oo naga maqan gudoonka baarlamaanka golaha wasiirada baarlamaanka odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta dhalinyaradii waxaan hilmaamay halka runtii aad iyo aad ka xusay si gaar ah mudan maamulka caasimadda oo iyagoo hogaaminaya shacab weynaha caasimadda martiqaad sharaf leh soo dhaweyn sharfan ku soo dhaweeyay martidii ama walaalihii Soomaaliyeed madaxdii qaranka ee halkaas ugu timid. waxay ahayd soo dhaweyn aan loo kala harin soo dhaweyn aan reer Galmudug waxba la harin dadaalkii ugu dambeeyay la baxshay aan leenahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan baa waad xasuustaan reer Galmudugow doorkii aad cadgeysateen iyo sharaftii aad ka samayseen Galmudug guud ahaan gaar ahaan caasimadda. waxaan rabaa in halkaan sidoo kale ka xuso ciidamadii amniga oo habeen iyo maalin u taagnaa nabadgelyada iyo amniga sugayay oo qorraxda iyo qabowga aan ka hoyanayn oo intaa sugayay amniga madaxdii qaranka halkaas isugu timid ummadii Soomaaliyeed ku tashanaysay iyo reer Galmudugba. waxaad xaqiijiseen guul taariikhi ah waxaad xaqiijiseen Soomaaliya albaabkii marka xilliga la joogo ugu qiimaha badnaa ama la sugayay oo ahaa qaab ama hanaan doorasho oo dalku doorasho ku galo 2020-2021. taasi waxay ku soo gabagabowday Dhuusamareeb 3 oo aad caawa gunaanadkeedii iyo mahadcelinteedii aan u xafladeynayno. dalku wuxuu yeeshay qaab doorasho wuxuu yeeshay doorasho runtii muddo un cakirneed. waxaad samayseen dadaalkiinii ugu dambeeyey waxaana ka soo baxay miraha Soomaaliya u aayayso maanta caawa. waxaan rabaa sidoo kale inaan mahadceliyo madaxdii qaranka madaxdii dowladda federaalka Soomaaliya madaxdii dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee ka soo qayb galay shirkii meesha ku dhamaaday oo guusha ku dhamaaday iyagoo u sameeyay runtii aan hubo inay sabar dulqaad iyo mas'uuliyad u muujiyeen ummadda Soomaaliyeed reer Galmudug ay taxgeliyeen. kale waxaan rabaa inaan idhaahdo reer Galmudugow meel aad joogtaanba waxaad muujiseen magacii iyo maamuuskii iyo kartidii hufnaantii ladinku yaqaanay oo Soomaaliya dhexdeeda ku lahaydeen baa la soo baxdeen waana ku guulaysateen Soomaaliyana waa ku guulaysatay. annaga teennana waxaan rabnaa insha Allah tacaala inay halkaas nooga sii socoto Galmudug mid ah Galmudug barwaaqo ah Galmudug guulaysatay. inta noo dhiman oo cadawga meelaha uu naga jooga deegaanadeennana waan ka xoreysanaynaa reer Galmudug gacmaha is qabsada una diyaar garooba insha Allah.